أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد. أما بعد، وحن كهلينا ما أنت ويصدى يفضلك إليه ويصدوا وحيالها آدك أفضل بدن، وأنا عبادة مستقلة آد أفضل بدنته. marka weesadu dhowr arrimood oo fadaa'il ayaa loo sheegay. fadaa'ishaas aynu laba casar ka qaadanayna biidni illaahi albaari. fadlu alwuduu. alwuduu awalan qofka muslimka ah waxay ka dhigtaa yajcalu lmuslima min algari almuxajiliina yowma alqiyaama, kuwa xubna gargaran. xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam abi hurayra waatuu yidhi ya'tuuna ina ummatii ummadayda ya'tuuna way imanaya yowma alqiyaamati guran iyagoo biriir lehoo muxajiliina xubna gargaran min aathaari alwuduu. horta waa calaamad lagu garanayo ummadda nebi maxamed aakhira markay tagaan. marka intaan dambe waxaa la yidhi waxaa ku darsaday abu hurayra faman istadaaca an yutiila quratahu falyafcal, ha sameeyo. qurana waxaa la yidhahdaa bayaadka aladi yakunu fi jabhati lfaras ah. taxjiilkana waxaa la yidhahda huwa albayaadu aladi yakunu calaa qawaa'imi alfaras, meelaha qoobka ah yani saasoo xubnihiisu qoobka uga go-an yahay ayay u maarta. marka macnaheeduna waxa weeye muslimiintu waxay ahaanayaan kuwa wejigooduna ifayo oo nuur ka ifayo wejiyadooda iyo gacmahooda iyo lugahooda raadkii weesada adduunyada ay kusoo weesaysan jireen. waana waxyaalaha ummadatan ilaahay ku khaas yeelay. arrinta labaad waxa weeye oo weesada laga helayo oo fadligeeda bihi yanaanu lmuslim maxabat ullahi tacaala, ilaahay baa kugu jeclaanaya subxana wa tacala weesada. oo ilaahay qur-aanka waatuu ku yidhi ina allaha alle yuxibu atawaabiina, kuwa toobada ka badan waa jecel yahay, wa yuxibu almutatahiriina, kuwa isdahirana waa jecel yahay oo weese qabka inta badan ku socda. waxaa kaloo ka mid ah weesada fadligeeda sababu min asbaabi dukhuuli ljanna, waa sabab ka mid a sababaha jannada lagu galo. marka qofkii weesaysto weesada hagaajiya kadibna ashahaata oo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxameda rasuulullah dhaha ducadan akhriya. marka xadiiskii cuqbat ibnu caamir can cumar radia allahu canhuma labadaasba laga warinayay qaala waatuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alay slm, rasuulku waatuu noogu sheegay maa minkum min axadin yatawada, ma jiro qof idinkeena ka mid oo weesaysta falyubliq oo falyusbiq ilwuduu'a, weesada isgaarsiiya. huma yaquulu yidhaahda markaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada cabdullaahi wa rasuuluhu, waxaan qirayaa ilaahay maahna ilaah kalusa nabi maxamed rasuulka ilaahay inuu yahay. ilaa base hadduu jiro qofkaas futixat waxaa loo furaa abwaabu ljannati thamaaniya, 8 albaab oo jannada ayaa loo furaa. yadkhulu uu gelayaa min ayihimaa shaaa, miduu doona ayuu ka gelaya. arrin khatar awey marka iyado arrin weyn waay inaad weysasatid wa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamedan cabduhu rasuulu aad tidhaahda. hadda waa iyadana waa sabab ka mid a sababaha jannada lagu gelay. markaas 8 albaaba jannada mid ka harta ka galayaan lahay. arrinta afraad oo fadaaisha weesada ka mid a waxaa lagu koryeelayaa darajaadka qofka muslimka, dembigiisana waa lagu dhaafaya. abu hureyre waxaa laga wariyay xadiiskii radia allahu canhu alaa adulukum calaa maa yamxu allahu bihi lkhataaya, ma ina tusiyaa shay ilaahay dembiyada ku dhaafayo khataaya, wa yarfacu bihi darajaat, darajaadkana kor qofka loogu qaadayo. qaaluu balaa yaa rasuul allah, noo sheeg bay dheheen. qaala nabigu wuxuu yihi isbaaqu lwuduu, weesada oo la isgaarsiiyo cala almakaarihi, xilliga macnaha aadka u qabo makaarihda, xilliyada maarta qabowga daran uu jiro, sida hadda meelahan qabowga biyaha waaba la iska kululaysta, laakiin qofku hadduu maaragtay qabowga ku weesaysto qabowga u fadli badan u adkaysto xoogaagaas maaragtay weesada isgaarsiyo. lakin waxaa la yihahdaa inay xoogaa diirimaad yihiin baa u fiicanoo uu si fiican weesada isu gaarsiiyo qofku uusan jirka kala soo carcaran. marka hadduu biya iska diirimaada ku qubaystana ajarkeedii ba dhimayo, laakiin hadduu intuu ku suburo qabowga ku weesaysto si fiican isu gaarsiiyo, hadda markaas iyaduna waa wax kasii fiican wey. marka dembiga alla ku dhaafa darajaadkana kor baa lagu qaada.
qaaluu waxay dhaheen balaa yaa rasuulallah noo sheeg marka waa tuu nabiga weesada la isgaarsiiyey xilliga ay daran tahay qabowga iyo maarta makaarida xilliga makraha oo shidada jidho wa kathratu lkhutaa ila almasaajid iyo socodka loo badiyo masaajida wa intidaaru salaati bacda salaa salaad gadaasheed salaad la sugo maqribkii waa tukatay cishihii baa masaajidka ku sugtay soo jiirayo shaydaanku kuuma ogola wuxuu kuleeyahay iska fariiso wuxuu kuleeyahay soo wareeg xagga tag baarbanaanka soo sheekayso shaah soo cab xagga war iga tag dheh shahaaga iyo maqribkaaga meesha ku wadayso wardigaaga qabso fadalikum ribaad bi nabiga alayhi salaam kaas baa xirasha marka xadiiska muslim baa warinaya iyaduna marka waxa weeye dambiyada ayaa lagu dhaafaya dambiyadaas marka halkaa lagu dhaafayo culimadu waxay dhahaan waa saqaa'irta oo ilaahay xaggiisa ka gashay fadaa'il acmaalka lagu dhaafo ama kuwa xaquuqul insaanka oo dadka gaarka u leeyihiin maya inaa cafiska dalabta iyaga arrinta shanaad oo fadaaisha weesada ka mid a waxa weeye waxaa markaa weesasatid waxaa kaa furfurmaya subaxda markii markaa seexatid shaydaanku waxaa intuu qofku u yimaado 3 xarig buu ku xirtaa xargaha uu ku xirayana mid markuu soo kaco oo dhaha acuudu billahi min ashaytaan ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billah markaas ka furmaya midna markuu weesaysto midna markuu salaada galo marka waxay ka mid tahay waxyaalaha xargaha shaydaanku ku furmo oo caajiska iyo hamaansiga iyo wixii ba kaa tagay markaa weesaysatid nabigu xadiis buu noogu sheegay qofkiin markuu seexdo habeenkii shaydaanka 3 guntimood buu madaxiisa ku xirtaa yaqcudu shaydaanu calaa qaafiyati ra'si axadikum idaa huwa naama 3 cuqadin 3 guntimood buu ku xirtaa sheegada soo ugu xirtaa ma xaqiiqa ma loo jeedaa waa xadiisku ma sheegin laakiin inuu xarga xirto baa la sheegay marka aduu xarga hadda uma jeedid laakiin idaa naama 3 cuqad buu markaa ku xirtaa yadribu kullu cuqdan calayka laylun tawiilun calayka laylun tawiilun war habeen dheer baa mid walba wuxuu ku guntaa baa liyi habeen dheer baa kuu haraya sal sac baariya sac in badan baa ku saaray waxa uu xuray inuu salaada subax kaa kaxeeyo oo jamaacaadka ku dhaafiya waa shaydaan farqud buu ku leeyahay fain istayqada fadakara allah qofku hadduu kaco ilaahay xuso inxallad cuqdatun guntin baa furantay fain tawada'a hadduu weysaystana inxallad cuqdatun mid kalaa furantay fain sallaa hadduu tukadana inxallad cuqdatun mid kale ayaa iyaduna furmaysa fa asbaxa nashiitan markaas wuxuu waa bariisanayaa isagoo nashiid oo firfircoon oo aan meel laga hayn oo caajis lahayn tayiba nafsa naftiisuna ay caafimaad tahay caadi tahay wa ilaa haddii uu hurdadu la tagto oo guntimahaas ninka uu ku xiray shaydaanka ahi oo mid walba uu ku qora ku dhex jirto habeen dheer baa ku haraya seexo oo sidaa ku seexdo oo waagi u bariyo wuu waa bariisanayaa khabiitha nafsi isagoo naftiisi maaragtay si u caraysan oo si wax ka yihiin oo cajis badan dareemaya oo daalan kaslaan shaqadii baan qaban karin shaqo aadi kara leh oo camaq leh subaxdaas haddii shaydaanku hadduu xaajadu la hadla inuu dalqadeedi horay kaga didiyo waaba dhici ka dhaw ciyaalka kii la hadlay inuu dilo wixii magaalada qof kasta warinka maanta maxaa saar marka baalkii baa xarigii xalay intuu ku xirtay shaydaankii baa xarig intuu xalay ku xirtay xarigii buusan iska furino weesadii iyo jamaacaadkii iyo salaadii iyo wixii maartay uu xargaha kaga furfurmi lahayn waagii baa ku beriyay isagoo xargii ilaa xargaha shaydaanka kaa magan galayna annagii wixii muslimiina marka xargahaasaa kaa furmaya waxay ka mid tahay marka weesadu waxyaalaha xargaha lagu furo oo ilaahay baa kaaga furfuray arrinta 6aad oo fadaaisha weesada ka mid waxaa ka mid a qofku inuusan seexan inuu weesaysto intuusan seexan oo iyaduna waa fadli gaar ahoo waxaa laga helaa min asbaabi almowti cala alfitra sababaha keeno qofku inuu diintiisa ku dhinto ayay ka mid tahay haddaad weese qab ku seexatid oo ay naftu kaa baxdo waxaa ku dhimanaysaa cala alfitra diin baa ku dhimanaysaa dusha marka waa inaad ma ogid inaad soo kici doontid qofna damaanad ma haysta habeenka waa seexanaa damaanadna ma haysano sidaa daraaddeed waa inaad weese qabkaa ku seexataa weese qabkaa waa inaad ku seexataa oo maxaa samaynaysaa waxaad samaynaysaa habeenka markaad seexanaysa weesayso weesadaada ku seexo
nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis uu soo saaray muslim iyo bukhaari oo baraa binu caazib warinaya wuxuu ku yidhi idaa atayta madjacaka markaad tagtid makaanu jiifkaaga fatawada weesayso wuduu'aka lisalaa sidaad weesada salaada ugu weesaysan jiray oo kale ugu weesayso yacni weeso dhammaystiran la imo uma adjic calaa shiqaka alayman dhinacaaga midigtaa u seexo uma waxaad tirahdaa uma qul waxaad tirahdaa allaahuma aslamtu wajhii ilayk ilaah wejigaygii baan kuu jiheeyey wafawadtu amrii ilayk amarkaygana maan adaan kuu bandhigtay wa alja'tu dahrii ilayk dhabarkaygana adaan kuu tiiriye ilayka xaggaaga raqbatan jacayl iyo warahbatan cabsi aan maaragtay raqbatan jerin iyo warahbatan khayrkaagaan jirin iyo warahbatan cabsi ilayka xaggaaga maaragtay ay ahaatay laa malja'a meel la magan galaa ma jiro walaa manja minka wax badbaadin karaana ma jiro ilaa ilayka adiga maha allahuma allah yo aamantu waan rumeeyey bikitaabika aladii anzalt kitaabka aad soo dejisay wanabiyaka aladii arsalta iyo nabiga aad soo dejisay fain mutta hadduu qofku dhinto fain mutta haddaa dhimatay min leylatika habeenkaada fa anta cala alfitra fitra ayaa ku sugantay wajcalhuna waxaad ka yeelaysaa aakhira maa tatakalamu bihi wax allaale wixii ugu dambeeya ku hadashid baana ka dhigaysa marka qofka wasaqabka ku saxdana iyaduna waa saas arrinta sideedaad waxaa ka mid a waxay ka mid tahay min calaamaati iimaani alcabdi qofka intaa weesa qaba tahaaradiisa ilaaliya waxay ka mid tahay calaamadaha lagu yaqaano qofka mu'minka calaamada lagu yaqaan bay ka mid tahay marka haddaad rabtid inaad noqotid qof mu'mina calaamadihiis waa inaad daa'iman weesa qabtaa rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam xadiis uu lahaa istaqiimuu toosnaada walan tuxsuu waclamuu ogaada ana khayra acmaalikum asalaa acmaashiina waxaa ugu khayr badan salaad walaa yuxaafidu cala alwuduu ilaa mu'min salaad weesadana ma xifdiyo oo ma dhowro oo ma ilaaliyo ilaa qof mu'mina maahan qof kale qof mu'mina unbaa weesada ilaaliya qof mu'mina oo weesaysanaya dadka kalenta suuluga iska galaan iska shaqo tegayaan iska soconayaan arrin kalena waa leedahay weese qabko weese qabtu waa xijaab iljajin il-insi balaayo imtixaan waxaasoo dhan dhufays bay kaaga tahay marka weese qabka waa inaad ku dadaasho saddex arrimood qofku hadduu ku dadaalo ilaahi subxana wa tacala waa xifdinaya adkaarta ama salaadaha ka dambayso ama galaab iyo subax ha noqoto ama afkiisaba birabinaas iyo birabilfalaq iyo qul huwa allah kharash bay kaa doonayaan iska akhri intaa soconaysa intaa gaarigoodi bismi illaahi araxmaan araxiim qul huwa allahu axadun illahu samad lam yalid walam yulad walam yukun iska akhri subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata illa iska akhri birabinaas birabilfalaq salaada gadaasheed akhriso ku wardi akhri shaydaanka jin waswaas kulli waa kaa tegaya ilaahay baa noo keenay noo soo dejiyay subxaana wa tacala ilaahay baa noo sheegay inay daawo yihiin weesa qabka labo salaada fajirka inuu qofku jamaaca ku tukado jamaacada fajirka bar wax kale ma qaban karid ilaahay amaanadiisa iyo dimadiisa iyo ballanta ilaahay inaa iska gashay saddexda arrimood qofka hadduu ku dadaalo ilahay wax dhiba tusimaya biidni illaahi albaari casharkan casharka xiga insha allah intaan ka gaarayno wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu